shirkadda ganacsiga Al-Nur Furniture ayaa maanta guddiga abaaraha heer qaran ee Somaliland waxay ku wareejisay gargaar isugu jira huga dhaxanta iyo bacaha roobka laga galo kaalmadaasina waxaa ka gudoomiyay xubno ka tirsan guddiga abaaraha heer qaran waxaana halkaasi ka hadlay Cabdiraxiin Maxamuud Faarax oo ka tirsan mas'uuliyiinta shirkadda Al-Nur Furniture iyo wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo kamid ahaa guddiga abaaraha waxaana uu mahad celiyay tallaabada ay shirkadaasi qaaday maanta waxaan ku wareejinaa guddiga abaaraha ee Jamhuuriyadda Somaliland alaabdan oo cadadkeedu yahay halkan ku jirta waa kumbacood weeye iyo 2,000 oo gooyaala ama bustayaala iyo barkimooyinkoodii ay maanta ugu tala gashay shirkadda Al-Nur Furniture inay ugu deeqdo dadkeena abaaru waxyeeleeyeen waxa shirkadda Al-Nur halkan noogu keentay oo noo kala wareegina maanta oo axada bishu ay tahay 17 bishii afraad runtii alaabta naga dambaysa sidoo sheegay maxaan ku raadin xubinta mulkiilaha Cabdiraxiim runtii sida khayrka badan noogu yimi saaka muddo badan runtii noo sheegin la socodsiiyay inaanu kala wareegno qalabka dhameystiran ah bacihii oo laga huway roobka ama xoolaha lagu dadayo oo kumbacooda iyo go'yaal sida bustaan loo tolay iyo barkimooyinkoodii oo iyaguna 2,000 oo xabadood ah ayaa runtii maanta aanu kala wareegnaa waxaan leenahay jazaakallahu khayra ilaahay subxaanahu wa ta'aala halka ka soo saarteen khayroodii ku bedelo shirkadda ku barakeeyo waxaad tusaale fiican u tihiin ama u noqoteen waalaheenna ganacsatada ah tan iyo intii roobabku ay ka curteen qaar ka mid ah gobollada Somaliland ayaa waxaa dadaalka intiisa badan uu isugu biyo shubtay sidii dadka loo gaarsiin lahaa cunada iyo sidoo kale dhinaca hoyga si hoos loogu dhigo khatarta iyo waxyeelada roobabku ay u geysan karaan dadka reer guraaga iyo kuwa abaaruhu ay barakiciyeen